10 xigasho oo uu qoray Kahlil Gibran oo ka caawinaya in la arko wanaagga nolosha. Saaxiib sabskraib igu caawi mahadsanid. Xigasho Kahlil Gibran. Kahlil Gibran, oo ka mid ah hal-abuurada iyo sugaanyahanada hal-abuurka leh, ayaa ku qoray qaar ka mid ah odhaahyada hal-abuurka leh isaga oo adeegsanaya hawshiisa. Laga soo bilaabo dhiirigelinta qofku wuu sawiri karaa, si uu u dareemo tayada wanaagsan, waxaa jira wax kasta oo ku jira shaqadiisa. Qofka yididiilo leh ayaa arka ubaxa ee ma arko qodaxdeeda. Qof xun ayaa ku eega qodxanta, isagoo aan la socon ubaxa. Xigasho loo nisbeeyey Kahlil Gibran, midani waxay dadka u sheegaysaa sida ay noloshu u wanaagsan tahay marka aad bilowdo inaad noqoto mid rajo leh. Hal. Carruurtaadu maaha carruurtaada. Waa wiilal iyo gabdho ay nolosha u hilowday nafteeda. Oraah kale oo lagu arko wanaagga nolosha, tani waxay dadka u sheegaysaa in abuurku qurux badan yahay, abuur kastana uu leeyahay wax u gaar ah. Ha raagin inaad horay u socoto, waa inaad u gudubto dhanka kaamilnimada. Soco, oo ha ka cabsan qodxanta ama dhagaxyada afaysan ee jidka nolosha ku yaal. Xigasho kale oo qurux badan, midani waxay dadka u sheegaysaa inay hoggaamiso, iyada oo aan ka labalabayn, tani waxay noqon doontaa nolosha ugu fiican. 2. Caqliga aan ooyina iga fogee, falsafada aan qoslin iyo weynaanta aan carruurta hortooda ku sujuudin. Odhaah ay tahay inay dadku xusuustaan, taajir ama faqiir, weyn iyo mid yar waa kan. Shalay waa xusuusta maanta, berrina waa riyada maanta. Oraahda dadka ku soo kordhisa maalmaha xun waa tan, oo dadka loogu sheegayo in berrito aan weli la qaabayn oo la qorin. 3. Silica ayaa ka soo baxay naftii ugu xooga badnayd, jilayaasha ugu waaweyn waxaa lagu dahaadhay nabarro. Odhaah kale oo ku dareensiinaysa nolosha iyo mustaqbalkaba waa tan. Noloshaada laguma go'aamiyo waxa ay noloshu kuu keenayso iyo habdhaqanka aad nolosha la timaado, ma aha wax aad u badan waxa kugu dhaca iyo sida ay maskaxdaadu u eegto waxa dhacaya. 4. Horumarku kuma jiro in la wanaajiyo waxa jira, balse waa in loo hormaro waxa noqon doona. Oraahda ugu fiican ee maalin aad dareento inaad ka quusato, tani waxay dadka u sheegaysaa inaysan kor u qaadin liiska shaqada, laakiin sidoo kale hagaajinta shaqadaada. Deeqsinimadu waa wax siinta wax ka badan intaad awoodid, kibirkuna wuxuu qaadanayaa wax ka yar inta aad u baahan tahay. Oraahda ugu fiican ee bini'aadamka qumaan, tani waxay dadka u sheegaysaa inay muhiim tahay inaad deeqsi noqoto markaad awooddo. Ha iloobin in dhulku aad ugu farxo inuu dareemo cagahaaga oo qaawan, dabayshuna ay dheer yihiin inay timahaaga ku ciyaaraan. Inaad ku jirto dabeecadda ayaa ah dareenka ugu weyn ee dhammaan.